kadib dhamaystirka saxiixa Jadon Sancho, Red Devils ayaa haatan diiradda saaraysa daafac dhexe iyo ciyaaryahan qad dhexe ah, iyadoo Ole Gunnar Solskjaer uu doonayo inuu dhiso koox taam u ah horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo aadan. Solskjaer ayaa sidoo kale rajeynaya in kooxdiisa uu ku soo daro daafac midig oo cusub si Aaron Wan-Bissaka uu wajaho xagaaga soo aadan tartan adag, halka mustaqbalka Paul Pogba uu weli ku jiro mugdi, isagoona ka cagajiidaya in uu saxiixo qandaraas cusub, waxaana xiddigan qandaraaskiisa ka harsan kaliya 12 bilood. Sky Sports ayaa soo koobaysa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ee Man United laga qoray maanta, waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo ah عبد القادر منكيسي وعبد الرزاق عبد القادر أنام. Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa in ay la xiriirtay wakiilka Paul Pogba si ay xagaaga ugu dhaqaajiyaan horyaalka League 1-ka. Pogba ayaa galaya sanadkiisa ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa. United ayaana doonaysa in ay wada hadal la furto xiddigan iyo wakiilkiisa Mino Raiola marka uu ku soo laabto tababarka kooxda maadaama uu haatan ku maqan yahay fasax. Iyada oo kooxda rajaynaysa in uu saxiixo heshiis cusub oo uu ku sii joogayo Old Trafford sanado kale. Xaaladda xiddigan ayaa ka dhigtay in kooxo dhowr oo reer Yurub ah ay isha ku hayaan, waxaana ugu horeeya Juventus iyo Real Madrid. Wararka muddooyinkan soo baxay ayaa sheegaya in kooxda ka ciyaarta League 1-ka Faransiiska ee PSG ay ku soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa Paul Pogba, iyagoo rajaynaya in ay ku qancin karaan in uu ka ciyaaro dalkiisa markii ugu horeysay. sida laga soo xigtay Football Mercato, madaxweynaha PSG Nasser Al-Khalifi iyo agaasimaha isboortiga ee Leonardo ayaa xiriir toos ah la sameyn doona Paul Pogba maalmaha soo aadan. Warbixinta ayaa intaas ku sii daraysa in ciyaaryahanka khadka dhexe uu la dhacay nidaamka kooxda PSG, sidaas darteed madaxda kooxda Paris ayaa isku dayi doona in kooxda Man United ay wada xaajood la furaan haddii ay macquul tahay suurtagalnimada ay kaga iibin karaan Paul Pogba, balse kooxda reer England ayaa ku adkeysanaysa in ciyaaryahankeeda ay sii haystaan kuna qanciso in uu heshiis waqti dheer ah uu qalinka ugu duugo. Jesse Lingard ayaa u sheegay madaxda kooxda Manchester United inuusan dooneynin in uu qayb ka noqdo heshiis kasta oo uu qayb uga noqon karo Declan Rice. Rice iyo Lingard waa saaxiibo aad isugu dhow, waxayna ku qaateen waqti qurux badan kooxda West Ham qaybtii labaad ee ololihii Premier League ee soo dhamaaday xagaagii hore. Kadib markii Lingard uu heshiis amaah ugu biiray kooxda West Ham, waxay u ahayd Lingard guul joogitaankiisa magaalada London, isagoona dhaliyay 9 gool, 5 kalena uu caawiye ka noqday, taasoo ka dhigtay kooxda lagu naaneeso Hammeriska mid xaqiijisa booskeeda reebka Europa League xil ciyaareedka soo aadan. Lingard ayaa haatan ku soo laabtay United, laakiin waxaa la xiriiriyay in uu ka tagayo xagaagan maadaama uu qandaraaskiisa ku jiro sanadka ugu dambeeyay. Red Devils ayaa isha ku haysa in ay u dhaqaaqdo Rice, iyagoona doonaya in ay xoojiyaan xulashooyinka qadka dhexe ee daafaca. Laakiin sida laga soo xigtay ESPN, Lingard ayaa u sheegay United in uusan dooneynin in uu qayb ka noqdo heshiis kasta oo isdhaafsi ah isaga iyo Rice. Manchester United ayaa la fahansan yahay inay aad u xiiseynayso saxiix daafac midig si ay tartan ugu hesho Aaron Wan-Bissaka xagaaga soo aadan. Trippier ayaa loo maleynayaa inuu diyaar u yahay in uu ku laabto England kadib 2 sano uu ku qaatay kooxda Atletico Madrid, halkaas uu qayb muhiim ah ka ahaa kooxdii ku guuleysatay horyaalka La Liga oo la soo dhamaaday. Daaficii hore ee Tottenham ayaa si aad ah loola xiriiriyay United, inkastoo horumar yar laga sameeyay. Manchester Evening News ayaa qortay in Atletico Madrid ay ku adkeysanayso qiimo dhan 40 milyan oo euro. Xiddigan ayaa 31 jirsan doona sanadkan, qandaraaska Atletico la jooga ayaa dhici doona 2 sano kadib. ciyaaryahankan ayaa lagu qiimeeyay adduun 28 milyan oo euro. Man United ayaana ku khasbanaan doonta inay bixiso wax ka badan lacagtaas haddii ay doonayaan xiddig reer England xagaagan, maadaama ay kooxdiisa diiday inay wax ka dhinto qiimaha xiddigan ay ku doonayso oo ah 40 milyan oo euro.